munaasabad ballaaran oo bandhig dhaqameed isla mar ahaantaana la qabto sanadkiiba mar ayaa maanta waxaa lagu qabtay fagaaraha weyn ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Bulshakaab oo ka mid ah macaahidda ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. munaasabadan bandhig dhaqameedka waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano, waalidiin, macallimiin, arday, abwaaniin iyo marti sharaf kale. ugu horeyn maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Bulshakaab Maxamed Carab Cusmaan oo khudbad ka jeediyay munaasabada ayaa marti sharafta ka soo qayb gashay bandhig dhaqameedka ku soo dhaweeyay. waxaan salaamayaa marti sharafta aad ku qiimaha badan ee halkaan fadhisa qof walba masarku ku fadhiyo iyo magacu ku fadhiyaba waan ku salaamayaa aad baan ku mahadcelinayaa marti sharafta aad ku qiimaha badan sidaad u soo qaabisheen xalfadan aadkii aad ku quruxda badan xaqiiqatan idinka hadda jiri lahayn meeshan soo camir lahayn xalfadan ma isa dhaceen dhinaca kale waan u mahadcelinayaa ardada qiimaha badan reer Bulshakaab halkaan fadhiso. waxaan kaloo sidoo kale mahadcelinayaa guddiga Briticolka shaqadan iyo hawshan iyo dirbigan sidaan noogu xardhay noogu qurxiyay xaqiiqatan waqtigu aad u yar munaasabadan doonayeen in xilli fiican oo dheer noo bilaabato waxoogaa ragaadin xalfadan noogu dhacay wadooyinka oo iska xirnaayay idinkuna waa soo dadaasheen qayb baad ka noqoteen xalfada maanta inay noo furmato. halkaani waa dugsiga Bulshakaab waa iskuul u shaqeeya ardada Soomaaliyeedna u furan in wax lagu baro. xaqiiqatan iskuulka Bulshakaab waxaa la furay koodii bishii shanaad sanada 2017 baa la furay. iskuulkan waxaa ka barto ardadaas aad ku quruxda badan aad u jeediin oo dharkii buluuga iyo foomkii wata wuxuu dhisan yahay ilaa muddo 2 sanad ku dhawaad. waxaa laga bartaa iskuulka waa dugsi hoose dhexe ama primary sida loo yaqaano. xaqiiqatan dhalinyarada halkaan furtay waxay ka gol lahaayeen ubadka Soomaaliyeed ee maanta jooga guud ahaan magaalada Muqdisho qaarkan awoodin ama aan iska bixi karin ama waxbarashadii meel dhaca kaga tagay inay waxbarasho u helaan waxbarashadoona ay sii wataan bay u tala galeen. mid labaad Bulshakaab u furan yahay xaqiiqatan waxa waaye inaan soo saarno ubad Soomaaliyeed oo sax ah arday la tartami kara ardada caalamka ee ka jirta maanta xag aqoonaad xag maskaxan xag jiraanba ayaan u tala galnay. sidoo kale munaasabada intii ay socotay qaar ka mid ah ardayda dugsiga Bulshakaab waxay ku soo bandhigeen waxyaabo ka hadlaya dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed. Professor Cabdiraxmaan Ducaale iyo Ustaad Maxamed Geedi Maxamed oo ka mid ah marti sharafta munaasabada ka soo qayb gashay ayaa munaasabada iyana waxa ay si wada jir ah uga hadleen hidaha iyo dhaqanka iyagoona dhanka kale ammaan u jeediyay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Bulshakaab. hambaliyo iyo bogaadin buu uga dirayaa iskuulka Bulshakaab madaxdiisa macallimiintiisa ardaydiisa iyo dhammaan marti sharafka ballaaran ee ka soo qayb galay xafladan mugga weyn leh. mar labaad waxay u noqotay waa fajiciso runba wanaagsan haddaan moodayo in hawshan iyada halkan laga qabanayo waxbaan soo diyaar garaysan lahaa. saaka ardaydu ila soo hadleen madaxda dugsiga ila soo hadleen qaar ka midii ay yiraahdeen xaflad baan u leenahay ka soo qayb gal haddaan ogaan lahayn alaabtan ay meesha taal alaabtani alaab Mareykan ka timid maaha alaab Yurub ka timid maaha waxaad arkaysaa wixii inagu iska lahayn ay ummadda Soomaaliyeed iska lahayd way waana marjaca nolosha way. mikrofoonka aan ku hadlayno mikrofoonka iyo kamarada waxaasba way suuli doonaan maalintay runteeda tagto haddii Ilaahay nafta noo daayo. waxa dib loogu noqon doono waryaa yaqiinay loo sameeyo raadidan yaa yaqiinay saladan yaa yaqiinay dad baa la raadin doona wixii ka sii nool wixii garanay iyo daayartayntii Ilaahay karsiiyay ee waqtiga u heshay ama xiisaysay. waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa dugsiga Bulshakaab fikirka wanaagsan waanad gaari doontaan bartilmaameedkiina waad gaari doontaan biidnillaahi taala. koobaya arrinka hidaha dhaqanka waa muhiim in xoog la siiyo suu professor sheegay aad bay muhiim u tahay oo culays badan la saaro sababtoo ah iska daa kuwii qurbaha noogu dhashay ilaa hadda waanu tagnay oo xuduudaha nu dhaafnay
kuwii qurbaha noogu dhashay iska daayay kuwii magaalada ku dhashay oo dalkooda joogay baan waxba ka garanayn marka in de si ona wuxuu u fakan inaanu dadaal badan muujino aad bay muhiim u tahay waan idin salaamayaa hangoobeed iyo bulshakaab waan wada joognaa waqti badan baa wada qaadan doonaa marsalafka kale waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn munaasabadan bandhig dhaqameedka waxaa soo xiray gudoomiyaha ururka hangobeed maxamed cismaan fiiqow waxaana uu maamulka iyo macalimiinta iskuulka bulshakaab ku ammaanay shaqada ay bulshada u hayaan iyo qof kastoo halkan jooga teatarka uu ku fadhiyaan ku salaamaya waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku faraxsannahay barnaamijkan inaan ka soo qayb galno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aan u mahad celinayaa macalimiinta dugsiga bulshakaab iyo maamulkooda oo si naftii hurannimo leh barnaamijkan ardadan wax u baro si iskooda wax u qabto halkaa boorka waxaa ku qoran dugsiga bulshakaab waa lacag la-aan wax lacaga lagama qaado ayaga dhigo waqtigoodii u huraan maalkoodii ku bixiyaan way ku dadaaleen waxaan rajeynaya insha allahu tacaala 20 sano soo socda iyo 50 sano soo socda inaan deegaamada dhammaan uu Soomaalida ee deganta aan gaarsiino dugsiga hoose dhexe iyo sare ee bulshakaab ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ugu adeega qaab lacag la'aan ah waxaana uu istaagtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo jeclaystay sidii ay u caawin lahaayeen dadka danyarta aan awoodin in ay caruurtooda ka dhibaan qarashka waxbarashada waana midda kaliya ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee bulshakaab uu uga duwan yahay iskuulada kale ee ku yaal gudaha dalka Soomaaliya Cabdixakiim Xasan Axmed shabakada wararka Raas Media magaalada Muqdisho